Soomaaliya waxay soo bandhigtay cudud ciidan taasi oo muujinaysa marxaladaha iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan oo soo maray militariga Soomaaliya dhismihiisa iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay dardar xoogan uu ku socday dhismaha tayeynta iyo sidoo kale qalabaynta ciidanka intaba laakiin waxaa muuqatay waxyaabihii lagu soo bandhigay inay ahaayeen kowda luuliyo 66 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi iyo sidoo kale koonfurtu ay midoobeen 1960kii ay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah 36 sano kadib militariga Soomaaliya waxa uu muujinayaa dadaal iyo sidoo kale qorshe ballaaran oo la xiriira arrintaasi waxaa muddooyinkii dambe la soo bandhigayay qorshe ballaaran oo arrintaasi la xiriira tababarka iyo tayeynta iyo sidoo kale taageerada caalamiga ah waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha ballaaran ee sare u qaaday militariga Soomaaliya inay helaan 10kii sano ee la soo dhaafay dadaalo lagu xoojinayo arrintaasi waxay hanteen isku dayeen inay la wareegaan inta badan dalka ammaankiisa waxaana muuqata hadda inay si weyn markaasi ugu dadaalayaan qorshaha guud ee amniga sidii loo soo afjari lahaa waxyaabaha qulqulatooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha jira cududda ciidan ee Soomaaliya ay soo bandhigtay waxa ay muujinaysaa dadaalada iyo sidoo kale qorshe ballaaran oo militariga Soomaaliya laga damacsan yahay iyadoo dhanka kale ciidamada cirka ee Soomaaliya dhankooda ay qaadanayeen tallaabo ballaaran oo la xiriirta dardargelinta iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee arrintaasi muujinaya laakiin militariga Soomaaliya qaybihiisa kala duwan dowladtuska ay soo bandhigeen wuxuu ahaa mid ka turjumayay marxaladaha iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan iyo sidoo kale quwad ciidan oo Soomaaliya xilligan ay si weyn markaasi ay u muujinayso 4 sano ee la soo dhaafay ee uu talinayay Xasan Sheekh Maxamuud waxa la arkayay militariga Soomaaliya inay sare u kacayaan inkasta oo markaasi kumanaan askari lagu waayay dagaalkii ka dhanka ah Al-Shabaab wuxuu ahaa haddana mid kale oo qorshe ballaaran oo dhanka amniga laga gaaray laakiin haatan waxaa muuqata militariga Soomaaliya inay madaxa sare u soo qaadayaan daraasiin ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sanad walba waxa ay ka soo baxaan dugsiga tababarka ee Turkisom ee dawladda Turkigu kaalin muhiim ah ayay ka qaadataa sidii loo tababari lahaa loona tayeyn lahaa ciidanka militariga Soomaaliya dhanka kale commandoska danab ayaa tababar waxa ay ku qaataan garoonka Bilidoogle ee sidoo kale Shabeellaha Hoose waxaana haatan muuqata in dardartaasi iyo sidoo kale qorshaha ballaaran ay muujinayaan xaaladaha sida weyn u muuqata militariga Soomaaliya ayaa markaasi dadaal xoogan hadda waxa uu ugu jiraa sidii uu u hanan lahaa talisiyadiisa guud ee dalka uu ku leeyahay awal militariga Soomaaliya waxa uu gacanta ku hayay qaybaha markaasi 27aad Hirshabeelle 60aad Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale 21aad oo Galmudug Soomaaliya haddana waxay isku dayayaan inay gacanta ku dhigaan qaybta 54aad oo markaasi xaruntiisu tahay qaybaha deegaanada Puntland waxaana dardar xoogan oo ay muujinayaan militariga Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay si weyn looga dareemayay maamulka Puntland iyadoo madaxda maamulku ay sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya faragelin xoogan oo dhanka ammaanka ay ku hayso maxaa yeelay ciidanka BSF oo ah ciidamada Mareykanka uu tababaro ayaa hadda waxay u muuqdaan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si weyn hadda u hoos imaanayaan xaaladda muuqata militariga Soomaaliya iyo sidoo kale xaaladaha ay muujinayaan sanadka 2026 waxa muuqata in si weyn markaasi looga gadoodsan yahay waxaana dhaqdhaqaaqyada sidoo kale waxyaabaha kale ay muujinayaan la dareemayaa in militariga Soomaaliya hadda ay awood muuqata ay la soo baxayaan tani waxay tahay mid markaasi aysan ku farxaynin dalalka gobolka kuwaasi oo sanad walba malaayiin dollar ka dul sameeya militariga Soomaaliya marka laga amba qaado ciidamada howlgalka nabadgelyada midowga Afrika ee AUSOM kuwaasi oo marxaladii saddexaad ku jooga Soomaaliya si ammaankeeda ay u ilaaliyaan laakiin geesiyaasha dalka hadda waxa ay soo sameeyeen sarkac xoogan waxaana haatan muuqata inay u diyaar garoobayaan sidii ay ammaanka guud ula wareegi lahaayeen sanadada soo aadan sanad walba dawladdu waxa ay soo saartaa ciidamo cusub kuwaasi oo hadda qaarkood ay ka imaanayaan dalka Turkiga ciidamo badan oo Turkiga ku maqan ayaa dhawaan la filayaa in ay dalka soo gaaraan waxaana muuqda qorshe ballaaran oo arrintaasi la xiriira sanadadii la soo dhaafay markaasi kowda luuliyo waxyaabaha la soo bandhigayay iyo sidoo kale 12 Abriil xuska ah waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha ugu ballaaran ee sida weyn markaasi militariga Soomaaliya uu ugu dabaaldegayay uguna soo bandhigayay qorshihiisa ballaaran laakiin sanadkan waxa loo arkayay inuu ahaa mid ka mid ah sanadadii ugu xooganaa ee la soo bandhigo dabaabaad ciidan iyo sidoo kale qorshe ballaaran oo la xiriira militariga Soomaaliya iyadoo sidoo kale xirihiisii kala duwanaana dib u dhis xoogan lagu sameeyay marka laga amba qaado qorshaha iyo sidoo kale waxyaabaha guud ee taagan si kasta ha ahaatee xaaladda la xiriirta militariga Soomaaliya iyo sidoo kale quwadda ciidan ee Soomaaliya ay soo bandhigtay waxay muujinaysaa 36 sano kadib Soomaaliya inay hadda cagaheeda dib ugu istaagayso si kasta ha noqotee dawladda Soomaaliya dadaal badan ay muujisay waxa haatan muuqata in awood la isku muuqooninayo dawladdu militariga ay dhistay iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee gaarka ah booliska gaarka ah iyo sidoo kale booliska caadiga intaba hadda waxay ka qayb qaadanayaan dadaalada iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran ee la xiriira dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado kuwaasi oo ku wajahan maamulada
si walba ha noqotee waxaa dhanka kale la leeyahay militariga Soomaaliya dadaaladooda iyo sidoo kale waxyaabaha kale waxay dhanka kale culays xoogan saari doonaan Somaliland iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadayso. waa mid ka mid ah waxyaabaha ay sida weyn markaasi ay u jeclaysanayeen tallaabooyinkan dalalka dariska ah gaar ahaan dowladaha Itoobiya iyo sidoo kale Kenya kuwaasi oo ciidamadooda 17 sano wax ka badan ay ku sugan yihiin Soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka nabadgelyada midowga Afrika iyagoo sidoo kale dhanka kale ay joogaan ciidamo aan howlgalkaasi qayb ka ahayn oo si sharci darro ugu sugan Soomaaliya laakiin militariga Soomaaliya oo awood sare ugu qaada waxa haatan muuqata inay qaadi doonaan tallaabooyin ballaaran. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar kale ayuu muuqdaa inuu awoodiisa iyo sidoo kale qorshihiisa dib ugu istaagayo. maamulada Puntland iyo Jubbaland hadda waa meelaha ugu daran oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay isku dayayso sidii awood gacanta ay ugu qaban lahayd laakiin ma muuqato qorshahaasi mid haatan soo degdegi kara. laakiin si kasta ay ahaato xaaladaha guud ee taagan iyo sidoo kale qorshaha ballaaran ee militariga Soomaaliya sanadkan 2026 wuxuu ahaa mid farxad geliyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. nus qarni dowladda cusub ee Soomaaliya ay jirto haatan sanadkii 2000 qorshihii soo bilowday wuxuu haatan u muuqdaa mid miro dhalaya inkasta oo nidaamka 4.5 ee awood qaybsiga Soomaaliya ee dhanka siyaasadda uu noqday mid ragaadiyay markaasi horusocodka iyo sidoo kale waxyaabaha Soomaaliya ee hore ugu dhaqaaqi lahayd. dhanka marka laga eego awoodda maamul goboleedyadu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaaliya haatan ay ka dhaqaaqi laadahay. dhismaha militariga Soomaaliya oo la rabay in mar hore nidaamka federaalka la waafajiyo ilaa iyo hadda waxa uu yahay mid aan arrintaasi lagu guuleysan. maamulada ayaana waxa ay rabaan mar walba inay ayagu noqdaan kuwa awoodda sare leh laakiin dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay doonaysaa inay awoodda iyo sidoo kale difaaca dalka awoodeeda iyadoo ay yeelato. ciidamada ay samaysteen ee daraawiishta ee maamul goboleedyada dhammaantood caalamku waxa uu aqoonsaday ciidamo maleeshiyaad ah waana la diiday waxaana la sheegay inaan marnaba la aqbali doonin qorshahaasi sidoo kale waxyaabaha kale ee jira taasi oo ugu wacan tahay in ciidamada kaliya ee caalamku aqoonsaday ay yihiin SNA Somali National markaasi Army kuwaasi oo si weyn markaasi dadaal badan ugu jira qorshaha ballaaran ee loogu jiro in sare loo qaado militariga Soomaaliya. si walba ha ahaatee 2026 sano kadib burburkii sanadkii 1991 qarannimada Soomaaliya haatan waxaa muuqata in Soomaaliya mar kale ay cagaheeda dib ugu istaagayso. 35 sano kadib dadaalada socday dhammaantood waxa ay ku soo biishubteen maanta Soomaaliya oo mar kale ka muuqata masraxiyada caalamka. dhawaan ayay ahayd markii ay ka qayb galeen dowlado kala duwan oo ka dhacay dalka Turkiga kaasi oo ay ka soo bandhigeen markaasi qorshe ballaaran iyo sidoo kale waxyaabo waaweyn. militariga Soomaaliya mar kale ayuu sare u qaaday darajadiisa iyo sidoo kale qorshihiisa ballaaran. indhaha caalamkana si weyn ayuu u soo jiitay maanta safiirada iyo sidoo kale dadkii ku sugnaana dhammaantood waxay wada qireen Soomaaliya inay mar kale cagaheeda ku istaagayso sidoo kalena aysan u baahan doonin mar kale nabadeeda in la ilaaliyo. militariga Soomaaliya ayaa mar kale u muuqda mid cagihiisa ku istaagaya una muuqda dadaal xoogan in la geliyo. dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay diiday in nidaamka federaalka ee 4.5 ee qabaliga ku dhisan la waafajiyo militariga Soomaaliya taasi oo keeni karta dhaawac xoogan iyo sidoo kale in ciidamadu ay kala burburi karaan haddii mar kale ay dhacdo qaranjab ama sidoo kale dhibaatooyin kale ay yimaadaan taasi oo hore ugu dhacday sanadkii 1991 markaasi oo militariga lagu amray in reerahooda iyo sidoo kale qabiilkooda ay ku kala biiraan taasina waxay noqotay xaalad xumaysay waxyaabihii jiray. Somali National Army mar kale ayay lugahooda ku istaagayaan.